waxaa maanta ku eg xilligii dowladda Kenya u qabatay qaramada midoobay inay keento qorshe degdeg ah oo lagu xareeyo xeryaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma ee dalka Kenya. Dowladda Kenya ayaa dabayaaqadii bishii hore ee Maaj sheegtay inay qaramada midoobay u gudbisay inay keento qorshe 14 maalmood lagu xareeyo xeryahaas. Wasiirka arrimaha gudaha Kenya Fred Matiang'i ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay la wadaageen in barnaamijkooda ay ku doonayaan in muddo dheer kadib albaabada la isugu laabo xeryahaas. Wasiirka ayaa tani ku sababeeyay iyadoo furnaanshaha xeryahaasi ay khatar amni ku yihiin dalka Kenya siduu hadalku u dhigay. Cismaan Abuukar Dube, wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya, ayaa toddobaadkii hore sheegay inay la yaab ku noqotay qorshaha Kenya ee muddada kooban ugu qabatay hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR. Wasiir Dube ayaa sheegay in xukuumadda Nairobi ay isku qaldayso arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bini'aadanimada, isagoo intaasi ku daray in dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalkaasi ay sharci ku joogaan dalka Kenya. Dowladda Soomaaliya, Kenya iyo hay'adda UNHCR ayaa sanadkii 2013 wada gaaray heshiis 3 geesood ah kaasoo qeexayay in qaxootiga xeryaha Dadaab ay dalkooda ku laabtaan si iskooda. Hay'adda xuquuqda aadanaha Amnesty International ayaa Talaadadii ka digtay in dowladda Kenya ay albaabada isugu laabto xeryaha qaxootiga ee Kakuma iyo Dadaab ee dalka Kenya. Amnesty International waxay sheegtay inaanay wax caddeyn u haynin qiilka Kenya ee ku aadan in dadka ku nool xeryaha qaxootiga Kakuma iyo Dadaab ay khatar ku yihiin amniga guud ee dalka Kenya. Amnesty International ayaa Kenya waxay ugu yeertay inay dib uga laabato go'aankeeda ku aadan xiritaanka xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma. Faiz Cabdi Warsamo, warbaahinta Nation, magaalada Muqdisho.